dhammaantiin biri waa maanta ku eegtiin waa wada baxaysaan biri waxaan matali doona dadkan iga dambeeya waxa horjoog iyo ogaal u tihiin dadkiina birito soo kacaya in maxay aheedo waxaan macna dara ku jirin iyo waxyaalo badan oo caqabada la dabooli karo lagu doodo waa laga fiican yahay mana jecel anigoo dhalinyaro meel laga waaweyn yahay ama waarid joogay in aan ugu hadlo inaan ka gaagabsanaan jeclaya un baa ixtiraamka siinaya ani hadda tusaale ahaan ardayd baan ahay waxaan bartaa siyaasad public administration baa bartaa waxaan jecelahay inaan wax maamulo waxaan jecelahay waxyaalo badan inaan dadkayga iyo ummadayda aan u qabto birito mustaqbalka aan hagi doono ama horjoog ahaan doono hadda waxaa jirta marka maadaama aan weli aan ku jiro wadadeedii hankayga hiisigay inaan waxyaalo badan aan sii aruursado aan sii fahmo nolosha iyo waxqabadkayga dambeeya horta caqabada koowaad oo jirta wax weeyaan anaga dawlad ma lihin Soomaaliya dawlad ma leh maanta hadii dawlad sax ay jiri lahayd maanta halkan anagu maan iimaaneen anagoo waarida iskuma aan doodnayn ma garateen hadii aan dawlad lahaan lahayn anshax iyo edab iyo akhlaaq iyo hoggaan iyo wax fiican noo horseedaysa qof walbana xaqiisa iyo xuquuqdiisa isagoo maqanaysiida gurigiisa isagoo jooga ayuu halka ka heli lahaa wax halkaana dhigay na keenay waa dawlad la'aanta saasoo tahayna in la kala roonaada ayaa fiican aniga anoo weli dhalinyaro stage koowaad ku jira yani marxaladii koowaad aan gaarin kuwii sarsare aan rabay ayaa waxaan arkaa waxyaalo badan oo caqabado badan oo jira hadii shaqooyinka tahay hadii ay noloshii tahay hadii ay dhalankii tahay hadii ay ummadii tahay marka anaga dhan dad baa hogaaminayna nafteena hogaaminayna waxa wax u qabanaysaa matalaysaa waa dad hadii aan naftaada wax ku koobaysid ma aqaan aniga meeshaad gaari doontid iyo waxaad ka tagi doontid dunidan horta waa inaan ku tahay qof ma taqaana dul saaray inaad ku ahayn qof in ma taqaana waxaan kaga hari kara dunidan laga dhaxlo marka aan aad baa uga xumahay anigoo dhalinyaro ah oo soo kacaya in aanan haysan wado iyo meel aan qabsado in dadkaygii wadankaygi iyaga dhanba corruption runta fiican la isku la sheego musuqmaasuq baan ay dhan ku wada soconaa hadii madaxdii ay tahay hadii kuwii ka xigay la yimaado hadii stage ku sii xigay hadii even meeli waxbarashada la yimaado maanta dumarka ma ay hayso aqoon daro hadii ay galaas tahay hadii ay jaamacad tahay hadii ay iskuul tahay annaga ayaa ku baawar badan annaga ayaan darajo badan annaga ayaan baawar ku haysana wiilashii all waa drop out laacib weeye fadhigu iska fadhiya fadhi ku dir muxuu faa'iido guriga hooyadiis buu ka soo baxaa waxa laga yaabaa aniga in waxbarashadii soo disado hore aan ka aaday waxbarashadeedii macallinkii aan waqtigiisa soo qaadan asagana uu baxaya wuxuu idoo maraya meel kale tuu aadaya macallimiinta xitaa hadda waa la yaabin adduunkan jira idinka dhanba dib u eega aayatiinka maanta niga dambeeya qof walba ma jiro dib u eegaya waxa biri ka dambeeya wuxuu biri ka tagi doono hadii ay wasaaradan tahay hadii maamul aad tahay hadii bahalkii aad tahay anaga dhan qabiil iyo waxaan ku shaqeynaa musuqmaasuq iyo corruption kaliya maantana wiilal yani waxa oran kara kuwan hadda soo kacay firiye dhalanka maanta xog badan ma ay haystaan baawar ma leh wax ma bartaan qaarkood dibadee jiraan aaway wax dhalinyaro ma aragtaan maanta inta joogtana waa drop out all hadii la fisho gabadhu Soomaa hadii guri joogto hadii ay maamo tahay hadii ilmaha meel kasta iyada aqoon haysta waxa haysataa xirfad ay ku shaqeyn karto shahaado wax walba u yaal documenti ma garatay marka caqabado fara badan baa jira anagu marka haatan iyo tan meena baa is eegayna inaga baa ma taqaana nafteeni fiirinayna iyo danteeni mise waxa matalaysaan birito waxa dadkiin iyo shacabkiin u reebi lahaydeen marka aniga ahaanteeda hal fikrad baa wallahi anigoo dhalinyaro aaminsanahay inta aan sooran wax qabo ama wax sameey waxaan jecelahay maxaa ka hari doona maxaa birito lagu tabi doona maxaa dadka ay u reebi doontaa wali intaas ay gabaysaa ma eegatayda oo kaliya meelaha qaar hadda ma jeceli anoo dhalinyaro waxa jirta wiil ila stage-kayga ah sidoo kale siyaasadda ila bartaa inuu raadiyo profit uu ku shaqeeyo mana gaarin xitaa qoyska ma dambeeyo wax xisaabini kan hadeer wuxuu bilaabaya corruption iyo saqajaanimo iyo qabiil iyo profit inuu sameeyo anigana waxaan fiirinayaa ama naftayda aan hogaaminay inaan volunteer ahaan u shaqeeyo iyo cilmi inaan faa'iido oo maskaxda inaan buuxsado si aan biri u maan karo taqaanaa wax aan la imaan karo marka dhamaantan hortii anagu soo laabanayna dawladna ma haysan waa in waxyaalaha maala yacniga laga tagaa dadka iyo bahalkii dhamaan hortii waa inaad birito wada eegtaan iyo waxaad ka tigi doon lahaydeen mahadsanidin